السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhamaan asxaabta ku xiran channelkayga Qatra Herbal. waxaan idin wadaa clip cusub oon ka sameynaayo waxaan sameynayaa juice mozzarella sida u sameynayo ila daawada koob caana halkaas ku soo shubtay waa dhala caana ama litir caana sidaad rabto iyo qal ayaan ku sameynayaa litir caana ku shuba kartaa 2 litir 3 litir afar saad doonto hadba sidaa doonto u sameysan kartaa markaas wixii aad haysato aad ka sameysan kartaa caanaha waa dhaylo aan ku soo shubtay halkaas marka hadda dabkii aan soo saartay dab aad u gaaban waxaan ku shubayaa 4 qaado oo qala meeshaas ku soo shubtay qalka waa kaasa 4 qaado qala aha meeshaas ku soo shubtay qalkaasaan si tartiib ugu soo darayaa caanaha markay qandac biyaha caanaha markay qandac noqdaan aan ku soo darayaa marka qandac saasaan ugu soo wadaaya dab aad iyo aad u hooseeya oo aad u gaaban marka aan ku soo dhameeyo qalkana dabka waan ka daminayaa sida uu soo baxaayo juice mozzarella heena asxaabta ila daawada qofba siday rabtay u sameysataa siyaabo badan oo kala duwan loo sameeyaa aniga sida ugu fudud ee aad u sameysan karto adiga gurigaaga joogto oo wax easy ah oo qarash iyo dib kaaga bixin sidaan u sameysan karto ayaan rabaa in ila share gareysaan marka waa kaasa caanihii iyo kareemkii waa kala biyihii kareemkii waa kala kormareen waa kaasa waa soo kala go'een marka waan miiranayaa waxaan ka miiranayaa biyihii iska miirayaa biyahaasaytu marka iska miiro waa isku keenayaa jiiska saas loogu soo baxaa kareemka saas loogu soo kormaray haddaad doonto biyahaas kulul aad ku sameysan kartaa aad ku laba celin kartaa wuu ku adkaanayaa biyo qabow haddaad doonto ku shuban kartaa markaad biyaha kulul ku isticmaasho biyo qabow aad ku xijin kartaa yacni sida inuu adeeg noqdo bas loo baahan yahay inuu adeeg noqdo oo kareemka uu isku dhago kareemka meesha ka soo baxay inuu isku dhago oo adkaado bas ayaa loo baahan yahay markaan sidaas u biyahaas kulul aan ku soo waxeeyo oo biyaha kulul aan ka majoojinayaa waa lagu celinayaa waa laga majoojinayaa waa lagu celinayaa si oo u adkaado aan u sameynayaa sidaas darteed marka hadii saas aad ku wado waxaad sameyn kartaa oo kale biyo qabow aad dhex gelin kartaa laakiin aniga caanaha waxaan ku soo dhameynayaa biyo kale isticmaalayay biyo kale qabow biyihii asiga aan ka miiray caanaha aan ka miiray ayaan ku isticmaalayaa waa biyihii qandac ahay waan soo kulleeyay waan ku sii laba celinayaa sidaas aan ugu majoojinaa ku soo celinaa si uu jiid wuxuu noo noqonayaa mozzarella oo jiidmaya insha Allah marka anigu aan ku sameeynayaa pizza ku kordharaaya ayaan tusaaya marka hadda jiiska kaligiis ayaan jecleysay inaad ila share gareysaan sida aan u sameynayo oo aad ogaataan waa kaas aasaan ku soo wadaaya biyaha waa la dhex gelinaa waa jiidma waa ku celinaysaa ilaa uu adeeg ka noqdo marka saasaan biyaha saas loogu soo dhex wadaaya insha Allah haddii aad ka hesheen waa kaasa waa ila share gareey kartiin waa sida ugu fudud oo juice mozzarella loo sameyn karo siyaabo badan oo kala duwan oo loo sameeyaa laakiin habkan waa habkii ugu fudud ee loo sameyn karo biyaha way kulul yihiin marka waa ku celinayaa oo majoojinaa lagu celinaa wala majoojinaa sidaas lagu wadayaa ilaa uu xoogaa ka adkaado marka uu noo soo adkaadane waa isla arkaynaa waxaa talaajada la gelinayaa ama haddii aad horeysayso markaas oo aad meel aad dhigi kartaa markuu kuu qaboobo oo ku adkaado baraf oo kale ta dhex gelinaysa haddii aadan haysan talaajo bacdaasaan ku soo xirayaa markaan bacdi ku soo xiro muddo 2 saac camal ayaan talaajada gelinayaa sidoo kaaseetu waa isla 2 saac camal oo talaajada ku jiray 2 saac camal oo talaajada ku soo adkaaday waa inuu fresh ku jiraa markasta sidii kale uu dhalaalayaa 2 saac camal oo talaajada ku jiro waa laga soo baxshay markii laga soo baxshay waa kaasa waa la hoolayaa sidoo ku soo baxa waa arkaysaan ma sha Allah waa kaasa saasoo ku soo baxay juice mozzarella heeni walaalahayna qaaliga haddii aad ka hesheen clipkan nooga faa'iideysta waa sida ugu fudud ee u sameysan karto adiga gurigaaga joogo soo dhawaada meel kastoo joogtaan waxaan salaamayaa waxaan kaga tahay cimri caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada dhamaan aqyaarta